مسؤولين كلا سعتها دولة ديجان كإمام الجورات كدلك وكل هاللي حوجينتا إسكاشي جنود جليل الوضع ديناع وركان وحايدين أخرينيا محمد إبراهيم. مسؤولين هير deegaan iyo kuwa maamulka gobolka Shabeelle ayaa kulan ku saabsan xoojinta iskaashiga nabadgelyada la qaatay mas'uuliyiin ka socotay degmooyinka qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Axmed iyo gudoomiyaha degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan Cawaale Isaaq ayaa si wada jir ah warbaahinta ugu faahfaahiyay waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi. Aan kulan ku qaadanay xafiiska maamulka gobolka kulankaas oo noogu yimaadeen ay marti noogu ahaayeen gudoomiyaha degmada Qurac Joomo iyo gudoomiyaha degmada Farlibaax. Labadan degmo waxay ka tirsan yihiin gobolka Bakool iyo gobolka Hiiraan. waxayna xad la leeyihiin degmooyinka Qalaafe, Mustaxiil iyo Feerfeer. maadaama degmooyinka ay xad la leeyihiin waxaanu ka wada hadlaynay howlaha amniga xadka iyo yacnaha sidii si midaysan looga howlgeli lahaa dhibaatada ay wadaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab kuwaas oo isku dayo waday haddana abaabul sameynaya si yacnaha bulshadaasi iyo bulshada deegaankeena ama degmooyinkaas gobolkeena aan isugu xirro. waxaa kaloo kulanka nagala qayb galay taliyaha ciidanka Westland iyo madaxa sirdoonka ciidanka iyo hoggaanka nabadgelyada degmada Qurac Joomo. kulanku wuxuu ahaa mid yacnaha aan rajeynayno in uu miro dhal noqonayo aanan isleenahay yacnaha waxaad gaaraysaan yacnaha in bulshadaasi iyo maamulkaasi oo midaysan inay abaabul sameeyaan bulshooyinkooda ay abaabul ku sameeyaan annagana wixii taageerada looga baahan yahay aan la garab istaagi doono dhibkoodana aan la qaybsan doono. Jidada saak shirka xafiiska dhacay waxa looga hadlayay amniga wadagtiin maanta wax ka jiro Soomaaliya cadawga joogo uu yahay qorshihiisu inuu soo galo dhibaateeyo geeska Afrika ilaa dawladda deegaanka uu soo galo dii arrimaha sidan iska kaashan lahayn dii ay tahay heer dawladda deegaanka Soomaaliya dii ay tahay federaalku dii Soomaalidu waxay tiraa gacan wasiir bay ku gooyaan labada dhinac dii aan nahay Soomaaliya anagoo iska kaashanayno dii cadawga asaan waxa uu qaban lahayn arrimaha amniga ma ka hadlayna saaka amniga sugu wuxuu faa'iido u fadhiyaa ummadda Soomaaliyeed uu faa'iido u fadhiyaa ummad kasta oo jiritaankeedu uu faa'iido u fadhiyaa warga gaxusan nimankan cid ay dhaafiyaan ma jirto marka waxa way amniga labada dhinac hadii ay tahay Soomaaliya hadii ay tahay Itoobiya labadaba muhiim bay u tahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto muhiim bay u tahay marka waxaan leenahay amniga cid uu dan ugu jiro ma jirtaba dii aan iska hashano annaga labada maamul aan iska hashano bulshadana aan ka hashano dii ismaleeyin inay ku dhex dhuuman karaan umaleyn mayno hadii annaga aanan dhaqaaq sameeyno oo aan lagu ekaynin wixii af aan lagu ekayno ficil lagu daro deegaanka dadkeena way anagoo kaashanayna hadii aan wada jir soo qabsano waxa waaye inay ku dhuuman karaan umaleyn maayo. Al-Shabaab waa aragtaan dhibaatooyinka ay wadaan inay dhibaatooyinka ay ku hayaan si guud mataqaana Soomaaliya waxay u soo rarnaysaa ogtihiin in xuduudaha iyo dawladda deegaanka Soomaalida ay dhibaatooyin joogta iyo weerar ay ku soo qaadeen maadaama dadkii xuduudka degan anaga aan la qabno aan nahay dhibaatooyinka saameyn maadaama ay nagu yeelanayaan inaan iska kaashano dhibaatooyinka ay soo wadaan nolosha ummadda kala dagaalamaan mashaariicii iyo dadkii baahan abaaraha jooga ay ka hortagaan dhibaatooyinka mataqaana wax la siin lahaa iyo xoolahoodii oo ay doonayaan in ay ka qaataan marka si guud mataqaana arrintaas aan uga hortagno muhiimad badan bay noo leedahay in asla qaadano gobolkii iyo dawladda deegaanka Soomaalida maanta aan la shirnina si aan arrinta u sii xoojino aan uga hortagno cadawgaas guud ahaan aan iskaga fogeyno aan asla qaadan muhiim bay noo tahay aad iyo aad wacyigelin badan ka seenay shirar baan qabanaa awal way abaabulnad bulshadaas haday ciidan tahay iyo hadii ay shacab tahayba si